dowladda Mareykanka ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday daawada ugu habboon ee loo isticmaalo cudurkan caalamka ku baahaya ee COVID-19. daawadaas oo ay ku tilmaamtay inay xakameynayso lana dirirayso cudurkan fayraska ah. hay'adda maareynta cuntada iyo daawooyinka dalka Mareykanka ayaa ogolaatay in xaaladda degdeg ah loo isticmaalo daawada lagu magacaabo Remdesivir oo lagu daaweeyo fayraskan isla markaana looga hortago cudurkan dilaaga ah. waa sida ay hay'addaasi ku dhawaaqday. daawadan ayaa waxaa horey loogu isticmaali jiray daaweynta cudurka Ebola ee horey uga dilaacay qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika. tijaabo dhowaan lagu sameeyay daawadan ayaa muujinaysa inay gacan ka geysatay soo yareynta waqtiga uu qofku kaga bogsan karo cudurkan caalamka ku baahaya. balse in daawadan la ogolaado isticmaalidda xaaladda degdega ah macnaheedu ma ahan in si rasmi ah loo ansixiyo, taasi oo u baahnaan doonta qiimeyn heerkeedu aad u sarreeyo. khubarada ayaa waxay sidoo kale ka digeen in daawadani ay samayso shirkadda lagu magacaabo Gilead aysan saameyn badan ku lahayn cudurka. madaxa shirkadda Gilead Daniel Day oo kulan la qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ogolaanshiyaha ah in daawadan la isticmaalo ay tahay tallaabadii ugu horeysay oo muhiim ah, isagoona sheegay in daawadani ay waxyaabo badan kaga duwan tahay daawooyinka kale. madaxweynaha Mareykanka ayaa inta badan waxa uu sheegaa in daawooyin kala duwan cudurkan ay daawo yihiin, isagoona horey u sheegay in daawooyinka lagula dagaalamo jeermiska lagu daaweyn karo cudurkan halka kasii horeysa amase bilowgii cudurkan uu gaaray dalka Mareykankana uu ku dhawaaqayba in daawada malaariyada cudurkan ay daawo u tahay isla markaana loo baahan yahay in daawadan loo isticmaalo. hayeeshee daawadan ayaa waxay noqonaysaa tii saddexaad oo madaxweynuhu sheego in haddii la isticmaalo lagu fiicnaanayo.